madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa Dr. Munsif al-Salaawi u magacaabay inuu madax ka noqdo guddiga caafimaad ee dowladda Mareykanku ay u xilsaartay baadigoobka tallaalka xanuunka COVID-19. Waxaan arkay macluumaadyo hordhac ah oo ku aadan tijaabooyinka tallaalka COVID-19. Taasi waxay iga dhigtay mid dareemaya kalsooni badan oo ah in aan dhammaadka 2020 heli doono tallaalka COVID-19. Ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco kuna dhashay magaalada Agadir ee koonfurta Morocco ayaa dunida Carabta aad looga bogaadiyay. Dr. Salaawi ayaa ah 61 jir. Waxa uu shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda ku diyaariyay gudaha dalka Morocco ilaa markii dambe uu shahaadada PhD-da ku diyaariyay jaamacad ku taala dalka Belgium-ka. Waxa uuna ka diyaariyay biology-ga iyo culuumta difaaca jirka. Dr. Salaawi waxa uu cilmi baarisyo fara badan ka sameeyay jaamacadaha Harvard iyo Tufts ee waddanka Mareykanka. Sanado badan ayuu madax ka ahaa qaybta tallaalka ee shirkadda Ingiriiska laga leeyahay ee lagu magacaabo GlaxoSmithKline. Salaawi ayaa soo saaray tallaalo aad u fara badan, kuwaas oo lagu daweeyay dadyow fara badan oo dunidan ku nool. Waxa uu sheegay in 200 oo tijaabada tallaalka COVID-19 ah oo dunida oo idin laga sameeyay, balse 3 ka mid ah ay muujiyeen ifafaalo wanaagsan. Dr. Salaawi ayay ku xasuustaan dadyow fara badan oo Afrika ku nool tallaalo uu isagu kormeeray